oo toddobaadyadii la soo dhaafay socdaalo ku mareeyay qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa dib ugu noqday magaalada Hargeysa. Wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan magaalada Hargeysa inooga soo diray. madaxweynaha Somaliland Daahir Riyaale Kaahin iyo wafdigu hogaaminayo muddo dhowr toddobaad booqasho ugu maqnaa dalalka Itoobiya, Djibouti iyo Faransiiska ayaa maanta ku soo laabtay Somaliland. madaxweynaha Somaliland Daahir Riyaale Kaahin oo ka soo degay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Cigaal ee magaalada Hargeysa ayaa markii uu soo gaaray qolka nasashada ee madaarka Cigaal waxa uu warbaahinta uga warramay ujeedada safarkiisii qaatay dhowrka toddobaad. وادوغيلو وركوالي دي سو جراي كا سو برايم مينستر كو ايربورت لو قابل مدحوينها انا ka wada hadalay xiriirka walaalaha wadada ka dhaxeeya sidii waxay loo qaban lahayd waan ku gudubnay Itoobiya iyo gudubnay برايم مينستر ma joogin laakiin waxaan ku raray madaxweynaha soo dowlaha aan soo dhaweeyay airportka iyagana waxaan ku hadalay sidii soo qabsi aan sameeyay iyagoo dareynaya waliba airport dekedeena inay استعمالان صدقة يحكي لسوق الهيئة تحسين لي إمارات كا والمرك هو رئيس الحاء أمريكي هيجي النصوصية أنا لو كل لكن هو مقلامر كا كون كدبلي بعد تقلي فرانسيسكا وحضر كل لي الكليات شاب الحوينها فرانسيسكا ساركوسي ساروا أفريقيا وحكنا له كل لي مينستر فورين أفيرز وشلات الدولة فرانسيسكا waxaan la kulannay hay'adaha horumarinta ee maaragtay dawladda Faransiiska French Cooperation and Industries waan la kulannay Olore Group waan la kulannay oo iyaga laftoodu danaynaya horumarkan barbara ilaa Itoobiya iyo nakada weynay ka qabtaan runtii marka la diishay ugu soo baxay safar waxyaabo badan oo wada hadalay waliba Faransiiska waxyaabo badan oo maadaama markii labaadena taga ahayd يعني إنه هالكي كسر دوانا يو مارك وحياه بطل إنه وضع بسرنا أيضا ديار هاين صورنا قد كيل وحصو مرناي مثلا إماراتك وحالا كلنا يقولون الهلال الأحمر ريجا يو يقولون بغا يبعث وطالنا يو دايلس كليها يسكيت ويمن دونان يقول هاي رانو يسيدي عيالات بدن وكذا تلك الوقود لها ويلها وطاعة سفر كاسي هذا السفر هذا مناسب ما يقول شيء سنيدنا صوم مرهم هناكي مرة بعد إثيوبيا جيبوتي لكن يبى سورة قليل وقت حالة دي دورشة ده يسود دكتي أخي ما أقدر تقول بعد سورة قليل كده ويانا يمكن صوم مرهم كله سورة بيه كان وقتهم ونقطة طلقة وبريش كيس صدق كلام يعني لا هنا جست كلام مدحوينها Somaliland waxa uu kalsooni buuxda siiyay guddiga doorashooyinka Somaliland maalinta ay u cayimaan doorashada madaxtooyada ee Somaliland in la qabto isagoo sheegay inuu qalinka ku duugay inuu diyaar u yahay maalintaasi waqtiga keenana isu gudbiyaan waa sax way badan laga wada taasi mar dambe murmursiyo loo sameyn maayo horta waa marka hore wixii aan rabnay doorashadan iyo sidii aan rabnay natiijada rabnay ka soo bixisay iyo wax soo soo asaahate maadaama caalamku oo dhan inagu riixayo innaka yarganimadeena sidaan wada baalanay noo taala waan galayaa madaxweynaha Somaliland Daahir Riyaale Kaahin ayaa waxa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Cigaal mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda oo horkacayay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Axmed Yuusuf Yaasiin golaha wasiirada xildhibaano iyo tiradada oo kale isagoo madaxweynuhu salaan sharaf ka gudoomay cutubyo ka tirsan ciidamada Somaliland خضر محمد عكولة Universal TV Hargeysa.